الله يسعد أوقاتكم. السلام عليكم. جيورج قرداحي daadihiye caan ah iyo siyaasi hami weyn taageeridii taliska Suuriya muddo sanado ah iyo kaceerinta kanaalka MBC sababo la xiriira mawaaqiftiisa aan caadiga ahayn wuxuu doonayay mansab aad u sareeya sidaas darteed wuxuu yimid wasaaradda warfaafinta ee Lubnaan wuxuu bartay siyaasadda wuxuuna ku caanbaxay soo jeediyaha fudud haddaba waa kuma wariyaha xidiga ah ee Lubnaan bishan gudaheedna loo magacaabay wasiirka warfaafinta dawladda cusub ee Lubnaan. جيورج قرداحي waxa uu ku dhashay dalka Lubnaan 1950kii wuxuuna caruurnimadiisa ku qaatay isla dalkaas Lubnaan oo uu waxbarashadiisa dugsiga sare ku dhameeyay kadibna wuxuu galay jaamacadda Notre Dame University si uu u barto cilmiga siyaasadda iyo sharciga inkasta oo uu bartay cilmiga siyaasadda haddana dadka qaar waxay aaminsanaayeen inuu noqon doono siyaasi caan ah waxbarashada kadib جيورج قرداحي waxa uu u jeestay warbaahinta wuxuuna shaqadiisii ugu horeysay ka howlgalay wargeyska lisaan alxaal sanadii 1970kii waxayna bilow u ahayd xirfadiisii ay dunida ku baratay kadibna wuxuu u shaqeeyay TV-ga Lubnaan oo ahaa telefisiyoonkii ugu horeeyay ee dawladda Lubnaan wuxuuna u shaqeynayay TV-gan ilaa bilowgii dagaalkii sokeeye ee Lubnaan wuxuuna ka soo tagay dalkiisa wuxuuna yimid Faransiiska markii uu u soo haajiray Faransiiska sanadii 1979kii wuxuu ku biiray raadiyowga Monte Carlo oo ku yaala magaalada Paris halkaas oo loogu magacaabay tifaftiraha guud wuxuuna si fiican u bartay ku hadalka 3 luqadood oo aan ahayn Carabiga waxayna kala yihiin Faransiiska, Talyaaniga iyo Ingiriiska. 1994 waxaa loo shaqaaleysiiyay inuu madax ka noqdo FM-ka MBC ee London intaa kadib جيورج قرداحي waxa uu ka howlgalay hay'adda warbaahinta Lubnaan muddo hal sano ah bedelitaankiisii uu u soo bedeshay hay'adda warbaahinta Lubnaan Qardaaxi waxa uu ka mid noqday soo bandhigayaasha TV-yada ugu caansan wadamada Carabta xayeysiinta bandhigyadiisa waxay gaareen tirooyin aad u badan caan ahaan iyo sidoo kale qiimeentaba intii uu ku guda jiray xirfadiisa Qardaaxi waxa uu u adeegsaday caanimadiisa taageeridda hay'adaha samafalka si ay u horumariyaan dadaalkooda ku aadan danta guud waxa uu si gaar ah shuraako ula noqday tamkiin oo ku shaqeysa dalada maamulka aqoonta iyo horumarinta aadanaha ee Dubai wuxuu ardayda tamkiin ee aragga naafada ka ah siiyay qalab waxbarasho oo cusub waxaana loo doortay جيورج قرداحي danjiraha wanaagsan ee qaramada midoobay sanadii 2011kiina wuxuu ka tagay MBC kadib markii uu sameeyay bayaan uu ku taageerayay dawladda Suuriya intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Suuriya waxaa laga joojiyay bandhigyadiisa MBC wuxuuna ku biiray telefishinka Al-Mayadin ugu dambeyntiina wuxuu ku TV-ga Al-Hayaat sanadii 2012kii si uu u soo tabiyo bandhigyada kala ah man sayarbaxu al-milyuun al-Musaamax Al Kariim xaafiz wala fahm mid walba oo barnaamijyadan ka mid ahna waxaa ku xiran malaayiin qof wuxuuna ka sameeyay hanti aad u badan wuxuuna noqday xidiga tabiyaha ee TV-yada Carabta waxaana loo magacaabay wasiirka warfaafinta dawladda cusub ee Lubnaan isla bishan 10kii Sebtembar 2021 Qardaaxi waxa uu guursaday Aida Kasaar waxayna u dhashay 3 caruur ah kadib sanado badan oo uu ku noolaa Yurub iyo dalalka kale ee Carbeed wuxuu hadda degan yahay magaaladii uu ku dhashay magaalada Vitron ee dalka Lubnaan.